waxaa maalmihii la soo dhaafay dhacdooyinkii ka dhacayay dalkaasi Ruushka ay warbaahinta caalamku isha ku haysay isla markaana ay hadal haysay magacyada saraakiil badan oo Ruush ah oo ugu horeeyay sarkaalka weyn ee Sergey Surovikin kaasoo la sheegay in dawladda Ruushka xidhay isla markaana dambiye lagu soo hogay ilawareedyo hoose oo laga soo xigtay wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa dhacdadaasi beenisay maalnimadii Khamiista ee la soo dhaafay kadib markii ay boggooda ku qoreen in wararka sheegaya in la xidhay General Sergey Surovikin oo ah taliye ku-xigeenka howlgalka militariga Ruushka ee Ukraine uu been yahay kaasoo warbaahinta reer galbeedku ay ku tilmaameen inuu taageeray kooxda militariga ee Wagner ee uu hogaamiyo Yevgeny Prigozhin kuwaas oo kacdoon ka dhex abuuray hoggaanka ciidanka. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sidoo kale ku baaqday in arrintan xogteeda saxda ah looga dambeeyo oo keliya laamaha ay khusayso arrintan oo keliya. dhinaceedana aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlinka ayaa diiday inuu ka jawaabo faahfaahinta la xidhiidha xariga Surovikin waxayna sheegtay inaan xog dheeri ah lagu dari karin xaaladda uu haatan ku jiro generaalkan. afhayeenka u hadla aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa mar lada weydiiyey su'aal la xiriirta in General Surovikin uu weli haysto kalsoonida madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. wuxuu sheegay in madaxweynaha oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada qalabka sida uu isaga oo qura u go'aan ka gaari karo xilka qaadista wasiirka gaashaandhigga iyo weliba laamaha kale ee ciidanka. Peskov waxaa kale uu sheegay inaan wax wara uusan ka haynin halka uu ku sugan yahay hogaamiyaha kooxda Wagner wakhtigan kadib markii dawladda Belarus ay ku dhawaaqday in Prigozhin uu dhulkeeda ku yimid diyaarad ka timid Ruushka. waxaana maalintii xigtay Arbacada ahayd afhayeenka aqalka Kremlinka uu ku tilmaamay wararka ay soo tabiyeen warbaahinta reer galbeedka ee ah in Surovikin uu ka warqabay qorshaha Prigozhin ee inqilaabka ay ahaayeen warar been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn. afhayeenkan oo lagu magacaabo Peskov ayaa sheegay inay jiraan eedeymo iyo shaki badan oo hareeyay shakhsiyaad kala duwan oo la xiriira falkaas kuwaas oo ah kuwo been abuur ah waxaana tusaale u ah Surovikin. dhinaca kale General Andrey Yudin oo ah taliye ku-xigeenka ciidanka cirka ee Ruushka ayaa beeniyey wararka sheegaya in taliyihiisa la xidhay. Yudin ayaa u sheegay wargeyska Oora ee ka soo baxa Ruushka inuu hadda ku sugan yahay hoygiisa isla markaana uu fasax gaaban ku maqan yahay. mana jiraan warar ay warbaahintu sheegtay oo ah in isaga iyo Surovikin lagu xidhay xabsiga Lefatorova ee magaalada Moscow. balse wargeyska Moscow Times ayaa daabacay xog loo aanaynayo in laga soo xigtay wasaaradda difaaca oo sheegaysa in Yudin iyo Surovikin ay ku xidhan yihiin xabsi ku yaala caasimadda Ruushka ee Moscow. Sergey Surovikin wuxuu ku dhashay 1966 magaalada Novosibirsk oo ah soohdinta Siberia. haatana waa abaanduulaha ciidamada militariga koonfureed ee Ruushka ee dagaalka ka wada Ukraine. Surovikin waxa uu ka soo shaqeeyay dalka Suuriya waxaana la guddoonsiiyey biladda darajada haliga Ruushka iyo sidoo kale bilad uu qaatay sanadkii 2017 kadib markii uu guulo ciidan soo hooyay isagoo hagaya ciidamada cirka ee Ruushka markuu ahaa taliyaha ciidamada ee qaybtaasi. Surovikin waxa uu soo maray heerarka kala duwan ee ciidanka ee wasaaradda difaaca iyo weliba taliska ciidanka ee guud waxaana loo yaqaanaa hogaamiye dagaal oo dhiiran oo geesi ah sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Jamestown Foundation oo ah hay'ad ka faalloota siyaasadda difaaca Mareykanka. hase ahaatee sida la wada ogsoon yahay Surovikin waxa uu xiriir wanaagsan la lahaa hogaamiyaha kooxda Wagner Yevgeny Prigozhin waxaana qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Ruushku ay sheegeen inuu ka warqabay shirqoolkii uu damacsanaa hogaamiyaha Wagner sidaas darteedna loo xidhay sida laga soo xigtay ilo ka tirsan madaxda ugu sarreysa ee dawladda Ruushka iyo saraakiil ka tirsan dawladaha reer galbeedka oo arrintan wax ilaa hadda ma cadda in Surovikin oo ah abaanduulaha ciidamada Ruushka ee duulaanka ku jooga dalka Ukraine isla markaana ahaa taliyaha ciidamada cirka in lagu soo oogay dacwad ah inuu maleegayay kacdoonkaasi isla markaana u xidhan yahay su'aalo badanna ay ka taagan tahay halka lagu hayo ninkaasi. sida laga soo xigtay xogo hoose waxaa jiray xiisad u dhaxaysay Surovikin iyo Putin bilooyinkii dambe gaar ahaan tan iyo markii Surovikin ay isku khilaafeen Putin saraakiisha sare ee wasaaradda difaaca u qaabilsanaan doona hagidda iyo istaraatiijiyadda lagu galayo dagaalka taasoo keentay in madaxweyne Putin uu darajada generaalka hoos u dhigo oo ka dhigo taliye ku-xigeenka ciidanka Ruushka ee dagaalka Ukraine dhowr bilood kadib. waxaana Putin xilkaas uu ku bedelay oo uu magacaabay General Valery Gerasimov. waxaana warbixinada laga helay arrintaasi loo aanaynayaa in Surovikin iyo saraakiil kale oo ka tirsan laamaha amniga ee Ruushka ay ka warqabeen qorshayaasha Prigozhin
inkastoo uu sheegay inuusan ka mid ahayn raggii shaxda soo dhigay. mana ahan markii koowaad la xidhay Sorofakiin ee waxaa taa ka horreysay oo muddo 6 bilood ah uu xabsi ku jiray kadib markii askar isaga ka amar qaata ay 3 qof oo dibadbaxayaal ku dileen caasimadda Ruushka ee Moscow. xiisadihii dhacay bishii Agoosto 1999 ee ka horreeyay burburkii Midowgii Sofiyeeti markii dambe ayaa la sii daayay isagoo aan maxkamad la soo taagin. 4 sano kadib waxaa lagu soo oogay galdacwadeed ay maxkamaddu dib ugu noqotay kadib markii lagu soo oogay inuu ka ganacsado hubka sharci darrada ah. Sorofakiin oo ay warbaahinta Ruushku ugu yeedhay Jarnaal Armageddon maadaama sida uu ku caanbaxay yahay jarnaal dhiiran waa rugcaddaa khibrad u leh dhinaca dagaalka wuxuuna ku guulaystay abaalmarin uu madaxweyne Vladimir Putin ku mutaystay doorkii uu ka soo qaatay dagaaladii ka dhacayay Chechnya iyo Suuriya. waxaana xusid mudan in madaxweyne Vladimir Putin uu magacaabay Jarnaal Sorofakiin inuu hogaamiyo howlgallada militari ee ka socda dalka Ukraine iyadoo magacaabistaasi ay timid kadib markii shaqada laga eriyay 2 sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa ciidamada Ruushka taasoo dhacday kadib markii Ukraine ay dib soo ceshatay dhul ballaadhan oo horey u lumisay oo gacanta ugu jiray ciidamada Ruushka ee waqooyi bari iyo waliba koonfurta dalka Ukraine. arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli dawladda Ruushku ay la kulantay dharbaaxo weyn oo ka soo gaadhay burburkii bundada lagu magacaabo Kerch ee isku xidha Ruushka iyo jasiiradda Crimea taasoo Ruushku qabsaday 2014. Sorofakiin waxa uu la wareegay hoggaanka ciidamada Ruushka ee Ukraine bishii Oktoobar 2022 laakiin waxa loo bedelay jagada taliye ku-xigeenka horaantii sanadkan taasoo qayb ka ahayd isbeddelka iyo isku shaandhaynta lagu sameeyay talisyada ciidan ee howlgalka halkaas u jooga. maalmihii la soo dhaafayna warbixino reer galbeedku ay soo saareen ayaa sheegaya in jarnaalkan Ruushku uu door ku lahaa tallaabadii uu qaaday hogaamiyaha kooxda Wagner ee lagu magacaabi jiray hoggaanka ciidanka militariga Ruushka. maalmihii la soo dhaafayna warbixino ka soo baxayay reer galbeedka ayaa sheegayay inuu door ku lahaa jarnaalka Ruushka tallaabadii uu qaaday hogaamiyihii kooxda Wagner. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ah ayaa sheegtay in Sorofakiin uu taageero xoog leh u muujiyay kooxda Prigozhin ee Wagner balse sirdoonka reer galbeedku si dhab ah uma aysan xaqiijin inuu ku lug lahaa tallaabadaasi. wargeyska New York Times ayaa horey u sheegay in Sorofakiin uu aqoon hore u lahaa in hogaamiyaha kooxda Wagner Prigozhin uu la qorsheynayay arrintaasi waxaana markii uu qorshahani bilaabmay Sorofakiin uu ciidamada kooxda Wagner ku booriyay inay joojiyaan isku dayga afkambi wuxuuna ku amray hogaamiyaha ciidanku inay ku noqdaan saldhigyadooda. jarnaalkan ayaa sidoo kale ka soo dhex muuqday muuqaal fiideo ah oo uu duubay isagoo gacantiisa midig ku sita qorigiisa isagoo yidhi waxaan ka codsanayaa ciidamadu inay joojiyaan waxa ay wadaan hadda oo si degdeg ah loo soo afjaro xaaladdaasi. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa tilmaamtay inuu u muuqday markii uu duubayay muuqaalkaasi nin daal iyo weliba cabsi badan ka muuqato mana cadda inuu cadaadis haystay iyo in kale. wakaaladdu waxay intaasi ku dartay in warar aan la xaqiijin karin ay sheegayaan in kadib arrintaasi laamaha ammaanku ay xireen ninkaasi islamarkaana su'aalo ay ka weydiiyeen kooxda Wagner iyo shirqoolkii dhicisoobay.